waan arkay qaar igu leh ninkani jimbu golaha gal ama jimbu goleeyay wallahi maxay committee-ga waan la yaabay dadku waxay arkayaan oo way oran karayaan waxay oran karayaan kubadan la qabanayo aan goolkiina meesha ku holin ninkan muxuu qabanayaa way soranayaan jimbu goleey ha dhulkaan ma ku dhacayna ninkii la habay guru ka oo kabarka noo sameey kabarku markaa u jabay ninkii la habay qabsaday baa guri kabarkan isagoo kabarka markaa u jabay kullu dadku waxaan doonayaa inuu markuu koowaad inaan noqdo goolhayaagii Somaliland daawade waxaan ku soo jeedinayaa inaan falkan bilaabin ama falkan aan sameeynin inta warbixintan ay socoto maadaama adiga dhibaato ku keeni karto haddii aanad xirfadan aanad aqoonin kubadda cagta warbixintan waxaan ku diyaarinaynaa goolhaye Cabdikariin Karo oo ka mid ah dhalinyarada ku nool Somaliland kaasi oo barta loo yaqaan TikTok-ga ku soo baahiya muuqaalo kala duwan oo isagoo qabanaya kubadda cagta iyadoo xilligaasi aan ciyaari jirin dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan Soomaalida ayaa ka falceliya shaqadan ama arinta wiilkan dhalinyarada ahi uu sameeyay taasi oo noqotay mid si weyn dadku ay soo weydiinayeen isla markaana ay isaga kala talinayaan in caafimaad ahaan arintani aan u wanaagsaneyn haddaba Cabdikariin ayaan ku booqday halkan oo ah goobta inta badan uu tababar ku qaato muuqaalkii lahaado igu la yaab ka tarnaa oo muuqaalan maalin dhawid soo sameeyay malaha laba cisho ka hor muuqaalka kale dadku way daawadeen laadu dad badan way daawadeen muuqaalkaas waxa muuqaal moofo roodi la dubayo inaan roodidina si daayo ku badina safkareeyo aan qabto kaasa dad adu igu saameyn darnaayo wax walba committee wax walba ugu tagaysay qaar ku raahda maxay hadeen lajin baatay kuwad iyo qaar iraahda maxay hadeen waxa ku hadhay tiyaatarka suuqa bartamaha tiyaatarka iyo qaar iraahda bariiska Hargeysa ku hadhay wax walba ugu tagaysay meesha iyo qaar iraahdo maan habeen dhawad fudiyada dawani qosol haga dhamaado qaar baa igu yiri suuliko sameey waan arkay qaar igu leh ninkani jimbu golaha gal ama jimbu goleeyay wallahi maxay committee-ga waan la yaabay dadku waxay arkayaan oo way oran karayaan waxay oran karayaan kubadan la qabanayo aan goolkiina meesha ku holin ninkan muxuu qabanayaa way soranayaan jimbu goleey ha marka su'aashaasi waxa weeye dadkuna ay diilayeen jimbu goleeyay waxa weeye horta meel goolahu qabto laba birood waxa loo sameeyay inuu kubad ka raacdo kadibna waxay arkayaan anigoo ama gaari ka boodayo kubadda safkaranaya birimashi bilii hoolinba ay soranayaan ninkan ma jimbu golaha galaa haddii aan markaa aan gool safkaran laba birood meesha aan ku hoolin sababtan aad kubadda isugu tuurayso aad u sameynaysaa arintaasi maxaa adigu ujeedadaadu tahay aniga ujeedadii waxa weeye muhiimadda koobaad in horta aan magacayga meel kasta aan magacayga gaarsiiyo iyo inaan booditaanka aan iska dhiso goolhayuhuna hadduu ka dhisan yahay maxay ahayd booditaanka uu boodi karaya kubada kasta uu safe garanaya ama uu badbaadin karaya oo markaa waxaan ku talagalay kubadda aan oo ka muraadlaynan oo goolaa in doona ka soo horeynan kor boodo kubadaas kala aan safe gareeyo ee booditaanka ku talagalay dadkan meherada tagaysa ama qaadkii ka tooraysa ama roodida ka daadirayso sidee maxaa ka soo gaaray wallahi maalikii aan roodida aan sameeyay firiga roodida waxay ka soo gaaray markii aan meesha tagay ayaan ku dhimid firiga ku tabiado way garanayeen oo magacayna way garanayeen oo TikTok-gina daawan TikTok-garkii baa inoo yimaado firiga markaan siray samee ayaan roodidii sii daay kadibna ninkii lahaa baa yiri maxaa roodida ridayo ari goolhayaan baa riday ninkii lahaana waxbay ma odhanay roodidii adu wax khasaaraan ma gaarinay roodida noo xareeyay buu yiri arab annana dhaaf xagga waalidkaaga ama dadka oo kale maxaa kaga soo noqda falcelin wallahi way jirtaa iyo dad badan oo igu yiri maxay ahayn nin waxaan wad ku jabaysaa ama waxbaad ku noqonaysaa ama laftaada wax yeelaysaa way jirtaa xagga waalidkana isku horta barnaamijyada kuma fiicno TikTok waxa ma daawadaan laakiin waxa daawadayeen kulli dhalinyarada walaalnay ayaa daawadayna marka waxay islaanta hooyo sheegeen waxay ku yiraahdeen muxuu ahaa Karo wuxuu sameeyay jaarkan xaafadda jaarkayga ama dumarka jaarka ama inta jaarkayga
oo sheegaan waxa ku dhahdaan inankaagu uu isjebinayaayo dee mar biyo ku dhacayaayo barkad ku dhacayaayo hadduu dhintaba ka warba inankaaga la hadalo waxyaabo noocaas islaanta way ku tiraahdo hooyo way soo gaarsiiyaan. cabdikariin karre waxa uu sheegay in mararka qaar arrimahan uu sameynayo isaga ay dhibaato uu kala kulmo balse dhibaatadaas aan ahayn mid badan maadaama xirfadeedii uu leeyahay. waxay soo gaadhay waxyaabo badan oo aduu iska shilimaayo kala ama meel radir ka qaadmayo kala ayay iga soo gaadhay gamaxan oo kala meel ayagana kala iga soo gaadhay. laakiin maalinkii igu darneyd aan jib gaadhay waxa ahayd maalin aan kabar qaad ka soo boodiyo. kabarka qaad waxay ku sababay gacanta waxay ma noqotay laakiin gacanta dhaawac halis iguma soo gaadhay laakiin ka jib gaadhay. kabarkii markii soo boodiyay anigoo kabarkii meeshii taagay oo maxaaday iyo harsoonina ka soo boodo ayaabaa markaan saa soo boodayay ninkii kabarka lahaayo kabarkii iska laalaadiiba eegtay siri xaggan eegna anoo qosdiya ku dhacay dhulkaan marka ku dhacayna ninkii lahaabay igu kac oo kabarka noo sameey kabarku markaa u jabay ninkii lahaabay qabsadayba igu kabarkan isagoo kabarka markaa u jabay kullu dadku arkay kabarkaas uu jabay wuxuu igu dhaca kabarka noo sameeyo anaa ku sameeyay ku riyo dibiyaan soo qaato musaabiire halkan nasiir ganaa soo sameeyay. markaad sameynaysid qaabkan isturitaanka yaa ka caawiyo cidda kubadda kugu soo laadaysa waay. wallahi ciidaniga waxa weeye 4 ilaa 5 yaroo kooxdeeda akademiyada wata oo ka gaara maxayada inta kale ciyaartooyada kale waa inuu sameeyay in iyaguna tababarka kubadaha ama igu soo laadaan ama iga duubaan oo maalinkii ku horeysay fiidiyowga ninkii igu horeeyay igu yiri samee ama igu macaan xagga dambe kubadda ka soo qabo waa aduu kabtanka kooxduna waxa la dhahdaa kooxda FC Gaashaan baa la dhahdaa kabtanka ugu nastaa la dhahdaa kabtankaas ay igu yiri maxay kubadda xagga dambe ka soo qabo. xilliga la joogo ma kaliya uun baa sidan sameeya mise koox wada gashaa goolka koox oon galaa saarada cadaalada la dhahdaa oo ayaa mid weyd la soo saxatay ma soo qofraayeen habsiisikan ayaa mantigeega rajaynta lag baad adigu ka leedahay qorshahan aad sameynaysid ama arrimahan aad sameynaysid ilaa halkeed rabtaa inaad gaadho. wallaahi waxaan doonayaa anuu marka koowaad inaan noqdo goolhayaha Somaliland inaan noqdo kadibna aan noqdo goolhayaha Geeska Afrika kadibna aan ku xisiyaba caalamkaba taasaan rajaynayaa. Shucayb Xasan Dheere caasimadda Somaliland ee Hargeysa.